banka tuulada ka koreeya xoolaha noo daaqaan ma u diidi karnaa ninkii beeraan ka samaysana yidhaahda dhulku waxaa weeye ardulmawaat waan soo maray man axyaa ardan meytatan weeye hadduu sibqa sharciya u nooleeyo dhulkuna bannaanaan cidi lahayn tahay cidina uma diidi karta sharcan laakiin waxaa markaa weliyulamri iyo maamul islaami hadduu jiro loo ogolaanayaa wixii maslaxad guud ay u xayiraanba iyagu diidi karaan laakiin shakhsiyaadku waxba isma diidi karaan cunug dhumay oo aan anigu hayo dadkii dhalayna ay ii yimaadaan DNA ma ku xujayn karaa si aan u xaqiijiyo maya waxaan soo marnay hadday wiilkii sheegtaan ay gartaan isaguna dadkaygii weeye uu kuleeyahoo garanayo keliya ka qaadun caddaynaya damiin haddaad shaki yar qabto inay iyagu dhaleena wixii ka yimaada hadhow mas-uuliyaddiisa ay qaadayaan DNA laakiin waxaad kharashkaasoo dhan u geliso dee xoolahaaba la qaatay wiil qaadan mayside hadhowna reerkoodii markuu weynaada uu iskaadiya maxaa dhibkaa kugu wata haddii la furo gabadha iyadoo aan lala aqalgelin ma leedahay ciddabax maya yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtumu lmu'minaati uma طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna famaa lakum calayhina min ciddatin tactaduunaha famaticuuhuna wasarixuuhuna saraaxan jamiila wax ciddaa male gabarhayna ninkiis arag haddii la furo aabbahay qabrigiisa astaan ama calaamad ma u samaysan karaa calaamaddu haddaynan dhismo ahayn wax kor u baxsanna ahayn oo dhagax iyo wax lagu garto ay tahay dhib ma laha cusmaan ibnu madcuun qabrigiisii buu nebigu alay salaam dhagaxii saara atacarafu bihi calaa qabri akhii aan ku gartee waxaan ku weydiiyey lixda beri oo shawaalka iga ma wada gudi karaa qalle iyo shawaalka maya fiiri qadaha waxuusan kaaga gudaynin horta niyadu waa mukhtalifa lixda shawaalkaana niyadoodu waa naafila iyo sunna qaduhuna niyadiisu fariida weeye waxaa labaad qadiyadda xadiidku tilmaamay soddonka ramadaan 10 bilood bay u dhigantaa alxasanatu bicashri amhaaliha lixdan beri bay u dhigan tahay oo labadii bilooda ka siyaami dahri sanadkao dhan nin soomaal lamid tahay la yidhi haddiiba 6 ka mida ramadaankii aadan soomin labadii bilood weli way dhiman tahay oo naaqis wey oo 6 beri qadaa aad soontood ku buuxiso xoolaha cidlada laga helay haddii ay sako gooyaan sakada ma laga bixinayaa maya ninkii xoolaha lahaa ee ka maqnaana zaka laguma laha ilaahu helo adiguna xoolo ammaano oo dad u haysa weeyeoo meel yaalla ama xoolahaaga ku dhex jira zaka laga bixin maayo xoolaha waayo adigu malihid ninkii lahaana ma oga oo meelay jiraan ma oga anoon sutro haysan anoo sutro aysan ii oolin dadka ma iska difaaci karaa maya qofku sutradiisa qofkii ka hormaraya uu iska celin karaa haddaadan sutro lahayn in lagu hormaro ma fiicna laakiin xaqu malihi dadka inaad xanibto haddaad doonayso wax inaad iska celiso sutro samayso amarka sharcigaana fuli sheekh sida dhaxalka loo kala xigo ma loo kala xigaa nikaaxa soo labadii minhaaj lama hor ordo way noo iman doontaa masalada kitaabu nikaax baaban dheerayn oo hal cashir keliya insha allahu tacaala kaa xigee waxba minhaajka hor ordin ka waran haddii anoo dukaan leh qof ii dhiibto lacag haddana aan qof la diriro haddana la jabsado ma anaa la iga rabaa waxaan u qaatay dadkii aan la diriray baa aargoosi u jabsaday saas miyaa macnaheedu qadiyadda aargoosigay u jabsadeen dembigeeda iyagaa iska leh aduu haddaad xoolaha meeshii aad xoolahaaga ku xifdiyeysay ku xifdiday dad baan colahayn oo soo duuloo meesha jabsaday waxba dan kugu raaci maayo laakiin hal mar buu wax ku raaci haddaad ogeydin lagu soo socdo oo meesha la jabsan rabo ood isaga daysay waa dayacday xoolahana waa lagugu leeyahay
mushaharkayga waxaa la ii dhigaa bangi ribo ku shaqeeya mana awoodo inaan dhaho lacagtayda toos ii siiya oo bangiga ha iga dhigina maxaan yeelaa damaba awoodaa tiri walaa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscahaa un soo maaha marka la dhigaba haddaad ka qaadan karto yayna kuwa gaadhin wakhti ay ribo dhashee marka xagga lagaga soo shubo adiguna xagga kala bax arrintani waa dhici kartaayo wadamada qaarkood hay-adaha iyo dowladuhu xeerkooda waxaa ka mida qof shaqo wanaagsan oo nadiifa qabta inaan lacag kaashaba la siinin ee akownkeensan lagugu soo shuba la yidhaahdo banki islaami oo nadiifan inaad weydaa dhici karta markii waxaa lagaa rabaa haddii aad meelaad ku xafidato ama aad u baahan tahay aad haysato ama meelaad ku xafidaad haysa ama ad u baahan tahay ha ku geyna ku gaarin inay ku shaqeeyaanoo ay ribo dhasho haddii ay ka dhacdana dee wixii ribadii fuushay la samayn jiray unbaad samayn waxaan ka shaqaysannaa dhul gaalo waxaan gadno waxaa ka mid ah sonkorta gaduudka ah iyo leebitada maxaa la yihahdaa waxay ku xihan tahay intaad ka ogtahay sida loo isticmaalayo sonkorta guduudan meelaha qaarkood badanaa khamrigaa loo isticmaalo qamiirkanna waxay yidhaahdeen meelaha qaarkood oo waddankanaa joogna ka mida waxa ugu badan ee gata waa qolyada khamriga qamiiriya haddaad og tahay dadkan kaa gadanaya iyo alaabtana dadka aad u keenaysa suuqu inta ugu badan in waxun loo isticmaalayo keenisteeda iyo gadisteeda midna ma banaana waa qisadii la dhihi jiray cinabka in laga gada miman yatakhiduhu khamran oo wasiila ila alxaraami weeye walaa tacaawanuu cala alismi walcudwaani baa ku qaban haweeney ayaa ninkeedii ka soo carootay wiil yar oo ay dhashayna way soo qaadatay dhexda markay marayso ayay wiilkii geed ku xidhay ayadoo ninka ku xumaynaysa wiilka hadduu waraabe cuno ama uu dhinto qoftaas maxay mudan tahay magtii baa lagu leeyahay ilmaha magtiisii taa keliya ma ahane ilmuhu hadduu yar yahay safar dheerna ay la gasho oon iyo gaajo u dhintana iyadaa magtiisa lagu leeyahay waayo dulmi iyo tacadi bay ula safartay biduuni idni waalidihi khatartan ay u gelisay saddex su-aalooda dheerdheer baan kusoo gabagabeynaynaa sheekh baashu way badatay nagada baashu aad bay u fara badan qofkan af Soomaal sheeko dheer buu soo qoray wuxuu yidhi ka waran haddii aan helo lacag baadi ah kadibna aan baafiyo sanad markaas aan waaye qofkii lahayd haddii aan ku shaqaysto oo faa'iido badan ay dhasho kadibna qofkii lahaa muddo 2 sano ka bacdi aan arko muxuu xaq u leeyahay faa'iidada asaga miyaa leh mise anigaa leh faa'iidada adigaa iska leh xoolahana damaan iyo damaanadaaday galeen oo xoolaha hadday wada khasaari lahaayeen xaataa isagu yimaada xoolihiisa uu kugu lahaan lahaa alghunmu bilghurmi weeye faa'iidadiisa waxba kuma leh gabar muslimad ah ayaa heshay cunug bannaanka lagu soo tuuray kadibna way nuujisay sidaas ayayna ku korsatay wiilkaas dhaxalkiisa ma leedahay haddii ay uu xoolo yeesho kadibna uu dhinto ayadana ma dhaxli kartaa hadday dhimato ma dhaxli karaa iska hadday dhimato masalada isagu ma dhaxli karaa iyo ma dhaxli karto mas'alo weeye culamadu dhexdooda muran ka taagan yahay ilmaha laqiidka ee bannaanka laga heleen aabbiya abtir loo aqoonin ma ciddii korisay baa iska leh kamaa qaala cumaru radia allahu canhu wa ardaahu sida asxaabu musanafaadka cabdirasaaq iyo keyrkood ay ka soo guriyeen ibn abi shayba ibn اlqayimna tahdiibu sunan abi daawuud uu aada ugu difaacayo riwaayo sanadkeeda dacfi ku jiro min xadiidi waatirata bn asqac laga warinayo markuu ka hadlayo uu aada u difaacayo laakiin jamaahiiru ahlilcilmi siday u badan yihiin taa wax laguma dhaxlee baytulmaalkaa iska leh haddii baytulmaal jiray hadduuna jirinna iyadaa xoolihii dhaxaloo dad ugu xigtoo qaadan qof ayaan badeeco dubay ugu dirsaday
alaabtii ayuu ii soo gaday kadibna wuxuu u soo dhiibay ajansi qofkii markuu yimid wuxuu igu wareejiyey rasiidyadii alaabta uu ii soo gaday waana ka qortay alaabtii markay timid ayaan wax ka waayey shirkaddii alaabta soo rartay waxay i tuseen inta aan leeyahay kadibna waxaan ka waayey oo shirkaddii ayaa wax ka maqan yihiin waxayna leeyihiin waxaa laga yaabaa alaabtan inaan xafiiskeenna la keenin ee ka raadsada meeshii aad ka soo gadateen meeshii laga soo gadayna alaabtii waa laga soo qaaday ee yaa lagu leeyahay alaabtaas keliya ninkii alaabta soo raray iyo shirkaddii bay ka dhaxaysaa isagu caddayn hadduu keeno alaabtaa inugu dhiibayna dee iyagaa laga rabaa hadduu caddayn keeni waayo ugu dhiibay iyaguna inkiraanna isagaa xoolihii gacantiisa ugu dambayso laga rabaa oo waa inuu caddayn keena xoolihii inuu wareejiyey wixii intaa faahfaahsan waa qadiyad laba qof ishayaane labada xujo markii laydin dhegaystuunbaa si gaara laydin kala xukumi karaa qofkan laba su-aalood baan qabaa haddii haweeney ay dhasho caruur badan laakiin uu ku jiro caruurtaas mid ay iyada dhashay laakiin uusan dhalin ninka ilmahaas oo iyadana ay og tahay waxaan ula jeedaa waxay ku dhashay gogoldhaaf kadibna uu geeriyooday ninkeedii canugaas ilmaha dhaxalka ma la leeyahay maya nabigu alay slam arrinta aad buu uga digayo qof ilaahay rumaysan reernimaan ahayn yaynan ku dhex darin ma u sheegaysaa ilmaheeda kale inuusan la dhalanin waa waajib diineed inay u sheegto inuusan la dhalinoo hooyo keliya la wadaago maxaase la gudboon haweenaydaas falkaas ka dhacay inay wixii caddaysaa u la gudboon maadaama xuquuq iyo dad walaaltinimadooda iyo miiraas iyo nasab iyo abtir ka dhalanayo hadhowna axkaam sharci oo badan ay ku tacalluqayso inay sheegtahay waa waajib haddaan waxba dhalanin isqarso ilaahayna dembidhaaf weydiisaan dhihi lahayn haddii ilmo aan dariiq ka helo oo aan barbaariyo ma dhihi karaa wuxuu dhaxalka la wadaagayaa ilmahayga maya dhaxal lama wadaagi karo dhaxalku sifa sharciga lagu helaa nuujinta iyo barbaarintu dhaxal laguma yeesho mise waajib ayay ku tahay ilmahayga in wax ka siiyaan dhaxalka waajib guud ahaan kuma aha laakiin sibaa xoolaha in wax laga siiya laga yaaba inuu xaq u yeesho uu noqdo waidaa xadara alqismata ulilqurbaa walyataamaa waalmasaakiinu farsuquuhu minhu warwaxuun siiyo masaakiinta meesha timid ishoodu yayna idinku dhicine iska sii jeediyadaas inuu soo galuun baa laga yaabaa nin ayaa wiilashiisii geel dhaceen kadib ergo ayaa loogu yimid deetana wuxuu yidhi shuqul kumalihi nimankaasi waa aabbe nimankaasi waa aabbihii calaa kulli xaal ninkoo sharcan haddaad rabtaan laba weji weeye hadday dadku qaangaar mukalafiina yihiin walaa taziru waasiratun wisra ukhraa wey qof walba mas-uuliyaddiisa wuxuu sameeyey isagaa iska leh haddii laakiin mid baa waajib ku ah labaad haddii uu kaalin ka geysan karo inuu dadka muslimkaa xoolahooda qaraabadiisa dulmi ay ku dhaceen uga soo celiyaay watacaawanuu cala albiri waataqwa weeyo muslimka in loo gargaaro unsur akhaaka daaliman bay noqonayaan oo madluumano madluumiin weeye inuu gargaaro waajib guud ay ku leeyihin weeye salaamu calaykum buu yidhi hadda ka hore waxaan ahaa mooryaan geela dhacda haddana waan iska daayey maxaa ila gudboon waa la yaqaanaa waa kula gudboon waa laguu yaqaanaa waxay dhaheen waa laguu sheegi sooma lagaa qarin maayo kow towbadu waa kugu waajib laba xoolihii aad dhacday wixii aad garanayso qadarkoodiiyo dadkaad ka dhacday
inaad dan dhowdaa lagugu leeyahay qadarkaad dhacday iyo dadkaad ka dhacday waxaad garanayso dan dhow baa lagugu leeyahay waxaad garanaysaa laakiin dadkii aadan garanayninna xoolihii inaad bixisood u sadaqaysaa lagugu leeyahay hadday soo baxaanna maalinu aad dan dhowdo waa nin xoolo dhacay baad ahayde warshad xoolaha qasha ayaa waxay wax ku gowracaan mindi magaca allah ku qoran yahay ma la cuni karaa xoolahaas magaca allahse ihaano miyay ku noqonaysaa horta mindida dhiiggu marayo magacii ilaahay oo dhiig la marinayo soo maaha cinda jamhuur cilmi waa nijaas bay dhaheen inta kalena min alawsaakhi inuu yahay bay qireen mindidaa ku qoran yahay bisin alle iyo halkaa warshada korkeeda meeshuu marayu ku qoran yahay iyo cajalad baashidanoo bismillaahi lahiyo bisin ku xalaaleeya ma noqoto markii la gowracayo bisinka u qabtaa la yidhi bisinku qof ahal u ah inuu qabtuu ku asaxaa cajaladu horta sideeda muslim mise kristan sideeda hadduu qof wathani ah bismillaahi dhaho xooluu xalaal ma noqdaan qof wathani ah ama qof murtada hadduu bismillaahi dhahaa ma qabtaan adigu mindidan iyo cajalada xukmulmuslim iyo kitaabi baad siisay ilan iyadaa bismillaahi tiriye war waxaa bisin ma noqdaane waxaad miskiinnimada intaa iska daysaan xalaasha noota rasmiga raadsada kolba qolan waxaan u malaynayaa galbeedka iyo meelahaas inayna ka dheerayn sheekh kambani aan dhowr sano u shaqaynayey lacag ay dhowrkaas sano darteed ii siiyeen ma qaadan karaa yacni waa waxa la dhaho sanwis hadday ku siiyaan lacagta ay ku siiyaan hadday tahay hadiyada ay kuu garteen ama waxay shaqaalahooda siiyeen ama xeer shaqaalahooda ku jirtay way bannaan tahay dhibaato ma laha laakiin hadday tahay dee lacag uu nimankii shaqaalaha ahaa iyo wax lagugu laaluushayo waxyaabaha qaarkood qarinaya ay ku lamaan tahay inaadan qaadan karin baan filayaa gabadh aan soo korsaday ma guursan karaa haddii aada soo korsatay oo baaburidaac iyo waxba idin dhex marin taxriimkana uusan musaaharo iyo nasab midna ku imanin dee waad guursan kartaa maxaa diidaya xaaskayga haddii aan hal dalaaq ku furo oo aan 5 sano kala maqnaano ma ku laaban karaa laakiin meer cusub baad samaynaysaan caqdi cusub oo wilaayadeedii aada raadsan weeye kadibna meher cusub oo baad siin oon kii hore ahayn 2 dalqadoodna waad isku qabaysaanoo miduu hore idinka tagtay dhaxalka walaalaha ma la kala qaadaa sida 2 bahood masaladaan ka soo hadalay sooma kii isku bahda ahaa inay iskala xigaan waan ka soo hadalay masalada kitaabka aan ku soo marnay waa 2 su'aaleed warqada ugu dambaysa idinkoo raalli ah janaabo ayaa igu dhacday biyahana waan ka baqay haddaan booraysanayo qaabkeen u booraystaa haddaan booraysto salaada ma soo celinayaa inaan qubaysto miyaa layga rabaa waa 3 su-aalood seed u booraysanaysaa wax ciid labaad raadinoo 2dan cumaacumood iyo wejigaad marin kaad rabto horreysii calaacalihiya dhabarkan isku xoq haddaad rabto kitaabu tayamum baan kaga soo hadalay salaada ma soo celinayaa maya biyihii haddaad ka baqdo oo cudurdaar leedahay salaadaa soo celin maysid qabays ma layga rabaa marka ugu horeysay biyo inaad ku qabaysato kuu suura gasho xadiidka abidar baad mariyo falyataqi illaaha walyumisa bishratahu jirkiisa biyaha ha mariyaad noqon waxaad horay u sheegtay wadaadow in dhiciska 120 beri dhaafin ama ka yar la soo ridi karo arintaas fasiraad
asintaa fasiraado buuq baa ku yimid sida inay albaab qiil u furto hablo badan si qaldan ama fudud u qaataan marka waxaad mar kale noo iftiimisaa masaladaas soo maaha masaladaa waxaa ihi laba shardi bay ku bannaan tahay cinda jamcin kabiirin min alfuqahaa masale cusubna maaha kow waa labadii isqabay inay raalli isaga yihiin annagu ilmo xaaraanahi iyo qof wuxuu raba samaynaya kama hadlayno waxaan ka hadlayna waa qof xuduud shariice iyo diini ay xirta wey ilmahani kow waa inuusan xaddii naf lagu afuufi lahaayee naf la goynaya gaarin shardiga labaadi waa inay xaq labada isqaba ka dhaxeeyo weeye labadaba raalli ka noqdaan culimmada qaybo ka mida waxay ku dareen waa inay jirto sabab muctabaroo maslaxo la taaban karoo falkan loo samaynayo laakiin intaan arkay fuqahada badankoo shardigaas kalama xiraan labadaa haddii la helo mutuunta mukhtasaraadka fiqigaa bay ku wada qoran tahay mukhtasaraadka fiqiga ee raggii hore mutaqadimiinta lahayn in badan oo kamid ay ku qoran tahay hadday dadku haddaba u baahdaan labadaas shardi bay fuqaho badan ku xireen banaanaanshaheeda intaas ahayd waxaan idhi dad baa si xun u qaadanaya dadka inta haddaba sooma ogidiin isbitaalladii ilmaha la tuuraya inay dhakhaatiirtii ka dacwoonayaan gaar ahaan ilmaha sharci darrada ee dariiqa iyo suuqa madow ku yimid isbitaalladana lala taagan yahay la daadinaya dhakhaatiirtii cabaad inuu ka dhamaayo sooma ogidiin taasi waa wax iska taagano qofka iyo alla kacabsigii wey laakiin waxaan ka hadlayaa laba is-og oo ilmahan wada dhalay oo ilmahan biyahoodii wada yahay oo iyagu dantooda raalli u arkay sababo badan baa keeni kara oo sharcan muctabara hooyada xanuunkeedaa keeni kara hooyada way xanuunsan kartaa qaacido sharci oo waxaa jira soomaalida maamaheeda masaladan waafaqsan waxay dhaheen midho gunti ku jira ku geed saaran looma daadiyo midhaha guntiga ku jira waa hooyadan caafimaadkeeda iyo nolosheeda ka geed saaranna waa ilmahan wuxuu noqon doonay inuu dhalan doonay inuu dhimo doonaa war loo haynin saa darteed irtikaabu akhafi dararayn way noqotaa hooyada si loo badbaadiyo caafimaadkeeda iyo nolosheeda in la yidhaahdo ilmahan ha la tuuro way keeni kartaa fuqahada qaarna waxyaabo kale bay ku dareen oo hadda haddaan taabto waxaad sheegayseen baan ka yaabin inaad tira haddana wax qiil kale wadaadkii bixiye tii horeba la qaatee mid ka daran buu ku dara inay dhahaan masaa'ilka fiqiga iyo cilmigaana mararka qaarkood markay mafsado ka badan ka dhalanayso ka aamuskay kaga fiican tahay oo nabigu mucaad markuu xadiidka u sheegay waa kii ku yihi laa tukhbir innaasa fayattakilu way tala saaranayaane ha u sheegin marka cilmiga qaar ka mida fii zaman mucayan waa la qarin karaaye qaybaha kale kuwa la qarinayaan isaga dari oo hadda sii gudageli maayo sheegi maayo subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaynu ku jirnay kitaabu alfaraa'id iyo dhaxalka iyo sida loo kala leeyahay waxaanan soo sheegnay dadka dhaxal kale inay laba qaybood yihiin qayb la yidhahdo asxaabu alfuruud oo qadar go-an leh iyo qayb casabaad la yidhaahdo oon iyagu wax go-an iyo qadar go-an aan lahayn sida badan oo hadba intii u soo harta ama dad la qaybsada ama keligood qaata halka wuxuu cashirkanu ka bilaabanayaa marka uu yihi faslun ay fi lfuruudi almuqadara dadka waxa go-an sharcigu u jaangooyey ee wax go-an oo qadaran qaadanaya haddaba dadkii waxa go-an ee qadaran qaadanayey ba waxaa halkan insha allahu tacaala uu ku sheegi doonaa inta ugu muhiimsan ama ay nusuusta kitaabka iyo sunnadu sheegeen wuxuu yihi wاlfuruudu waxyaabaha qadaran almadkuuratu la sheegay fii kitaabi illaahi tacaala kitaabka qur-aanka lagu sheegay 6 weeye waana 6daasoo gadaal wax ziyaado oo 7 kagama soo darmanin
annisfu dad nus qaata xoolaha meydkii ka dhintay nuskood xaqu leh waarubucu dad 4 meelood meel xaqu leh wathumunu dad 8 meelood meel xaqu leh wathuluthaani dad 3 meelood laba xaqu leh wathuluthu dad 3 meelood meel xaqu leh iyo wasudusu dad 6 meelood meel leh lixdaas bay dadku qadarka go-an lihii wax ku dhaxlaan waxaynan isugu jiraan dad xaalado kala duwan yeesha oo marna intan yeesha mar hadday xaaladdu sidaa tahay iyo hadba dadka jooga ku xiran iyo dad meeshooda aan dhaafin iyagu oo halkoodaa wixii loo qadaray uun goortay wax go-an yeeshaan intoodaa un qaata haddaba dadku markay xoolaha dhexlayaan waxaa ka horeeya in 3 arrimood marka hore meel la saaro intaan dhaxalka la gaarin qofku hadduu dhinto oo xoolo ka tago 3 arrimood baa ugu horeeya marka u horeysa aaskiisa iyo qabanqaabada aaskiisa kharashka ku baxay baa marka koobaad ee ugu horeysa laga bixinayaa haddaba xoolihii markii kharashka aaska hadday qabrigu lacag yahay hadduu dhaqitaanku lacag yahay haddii gaadiidka lagu qaadaya lacag yahay wixii kharash ah ee ku baxaya aaskiisa baa marka koobaad la goynayaa xoolaha inta soo hartay marka labaad waxaa laga bixinayaa deymaha lagu leeyahay wixii dayna ay dad ku lahaayeen baa marka labaad la bixinayaa marka saddexaad xoolihii haddii uu qofkii dardaarmay waxyaabo wasiya dardaaran sida fasalka dambe inoogu iman doonta uu sameeyey baa intii uu dardaarmay ama ogolaanshaha dadka dhaxalka leh ha ku xirnaato amaba inta isagu xaqa uu ku leeyahay oo uluska 3 meelood meel uu dardaarmay ha noqotee qaybta saddexaad ee la bixinaya waa dardaarankii wixii uu xaq u yeeshay meydku in la bixiyo oo faahfaahintiisa insha allahu tacaala inoo iman doonto intaa wixii ka dambeeya baa sida loo dhaxlayaayo qofkii nusle intaa baaqigaa kharashkii aaska dayntii iyo dardaarankii marka laga reebo buu nus yeelanayaa waxa soo haray waxa soo haray ulu yeelanayaa sudus yeelanayaa ruuc iyo umniya yeelanayaa ilaa aakhirihi fanisfu haddaba nisku fardu 5 5 qaybood oo dadka ka mida wax u qadaranayo wax ku dhaxlaan weeye waxaa ilaahay u qadaray qur-aankana lagu sheegay 5 inay wax ku dhaxlaan midka koobaadi albintu gabadh uu meydku dhalay weeye halka caruurtuu dhalay ka hadlahayana fain kaanat waaxidatan hadday hal gabara keliya meydku uu ka tegey falha nisf haddaba gabadh meyd ka tegey 3 xaala mid bay yeelataa inay noqoto lidakari milu xadi lunhayayni oo wiil walaalkeeda joogo taasi waa dhaxalka wiilkiiba 2 gabdhood buu dhigmaayo hadda inta wiil iyo gabdhood ay yihiin baa saa loo xisaabi xaaladda labaad ay yeelato waa inay 2 gabdhood iyo ka badan yihiinoo ulusaan bay tagtaa xaaladda saddexaad waa hal gabadhood keli uu ka tegay meydku wuxuu isagu dhalay ama caruuru awowyay ha jiraan ama yaanay jirin wuxuu meydku dhalay ee ka tegay caruuraba hadday hal gabadh keliya tahay fain kaanat waaxidatan hal mid gabadh keliya uu dhalay haddii ay tahay falaha nisf 2 meelood meel bay xoolaha leedahay inta kale laakiin iyadoo shaqo kuma laha meesha baa ku ciyaaray nisfu fardu 5 midda koobaad albintu wey gabadhii meydku uu dhalay bishardi inay iyada keligeed waxuu dhalay ee ka tegay tahay waxuu dhalay uu ka tegay inay iyada keligeed halkaa gabar keliya noqoto wey oo aayaddu tiri fain kaanat waaxidatan falaha nisf nus bay leedahay 2 meelood meel nuska soo harayaa qaadanaya de casabaad haddii la heliyo famaa baqiya faliwlaa rajulin dakar wey alxiqu lfaraa'ida biahliha waxyaabaha sharcigu qoondeeye jaangooyey dadkii lahaa siiya
wixii ka soo hara dadkaa markay qaataanna casabada raggee ugu dhow baa iska leh. wa bintulibni wiilkiisu gabadhii uu dhalay, meydku haddii aynan jirin gabaruu dhalay iyo wuxuu dhalay midna, hal gabaroo awow aabba uu u yahay buu ka tegey, iyadaa qaadanaysa oo dhaxalkii niska booskii gabadhay geli. masaladaana masalo lagu ijmaacayoo markii la yidhi awlaaddiinna iyo carruurtiinna laleeyahay daahirka cumuumka kuwaad adu dhashay iyo kuway sii dhaleenba way soo gelayaan bay culimmadu yidhaahdeen. waxaa kaloo u daliishadeen in saa inoo iman doonta nabigeenna ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam, gabaruu meyd ku dhalay iyo gabaruu awow aabba u yahay hadday yimaadaan ha kala badsadaan, laakiin sidii laba gabdhoodoo uu dhalay waxay qaadan lahaayeen bay isku qaadanayaan, wayse kala badsanayaan. soo arki doona insha allahu tacaala. oo min alabi waalummi aabbiyo hooyaba ay wadaagaan. waxaa kale walukhtu walaal oo min alabi aabba keliya ay wadaagaan. meydku hadduu dhinto oo wuxuu dhalay iyo aabbihii iyo midna aanu ka tegin, hal gabaroo walaashii uu ka tegey, ama aabbiyo hooyay wadaagaan ama aabbo keliyay wadaagaan. intaan sheegna marka laga saaro nus bay xoolaha leedahay. waxaana lagu fasiray culimmadu mufasiriintu ay isku raacsan yihiin, markii walaalaha qur-aanku ka hadlaya laba jeer buu ka hadlay. midna waa dadkay aabbo wadaagaan ama hooyaha u dheeraato inay wadaagaan ama yaanay wadaagin. midna waa midkay hooye keliya wadaagaan. walidaalika markii la yidhi in imru'un halaka laysa lahu waladun, waxba ma dhalin, walahu akhun walahu ukhtun falahaa nisfu maa tarak, wuxuu ka taga nus bay yeelanaysaa. haddaba gabadhii walaashayday keligeed ahayd waxay gelaysaa booskii hal gabadh keliyaadoo dhalay ama hal gabarood awow tahay joogto. halkaa waa afar shantii, afartaa waa dumar, laba faraca iyo laba xawaashi oo walaalo ah. waxaa intaa saddexeeya wazawju, ninkii haweenta dhimatay qabay, idaa lam yakun macahu hadduuna la jirin waladun ilma ay haweentu dhashay. hadday qof haweenahi dhimato oo ninkeedii oo xarig iyo xilo ay soo ahaayeen uu joogo, wax carruuray dhashoy ka tagtay wiil iyo gabarhtoona aanay jirin, xoolahay ka tagtay nis buu leeyahay. walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahunna waladun. xaasaskiinnu wixii ay ka dhintaan ee xoolo ah nus baad leedihiin haddii aanay ilmo iyo carruur ka tegin. ilmo ay iyadu dhashay haddayna ka tegin wey, ama adiga ha kuu dhasho ama nin kale ha u dhasho. muhiimaddu waa ilmo uu meydkan hooyadiihii dhashay hadduunan jirin wey. ilmahaasi ama si saxa ha ku dhasho ama si qalada ha ku dhasho. ilmihii ay dhashay haddii uu joogo wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo, ama hal mid ha noqdo ama ha tiro bataan. ilmo ay dhashayba mar haddii uu joogo malihid nus, laakiin haddii ilmo ay dhashay uu joogo nus baad leedahay. waxaad nus lagu leedahay waxaa ka mid ah haddii ninku meherkii weli uusan bixinin, nus isagaa yeeshayee nuskii kale bixintiisaa lagu leeyahay. haddii haweentii dad gacantii ay ku dhimato oo mag laga qaadanayo, magta nus buu leeyahay, ilaa an yakuuna qaatilan. isaguba inuu dilay maahane qaatilku wax ma dhaxla soomada soo marin. gacantiisaba hadday u dhimato isagaa magtii laga rabaaye magtii isagu waxba kuma laha. shantaasi waxay dhaxlaan nus bay dhaxlaan, laakiin shuruuddaasay ku dhaxlaan. ninku wuxuu ku dhaxlaa haweenta dhimatay xaaskiisa ahayd wax ilmo oy dhashay inuusan noolayn. waxaa la mida ilmo ay sii dhashayna inaanu noolayn. gabadha walaasha ah aabba keliya ha noqoto ama labadaba aabbiyo hooye ha noqoto, inaan wax walaala iyo waxuu dhalay iyo aabba ka xijaaba midna aanay jirin baa shardi ah. markay gabadhuu dhalay qaadanayso waa wax kaloo meydku dhalay oo uu ka tegay inuusan jirin wey, iyada aan ahayn, oo rag iyo dumar midna ah. tu awowgu u yahay aabbana waa sidoo kaleeto. warubucu, rubuca 4 meelood meel ahna
fardu اثنayni laba wax u qadaran weeye waa labada isqabo nin iyo xaaskii unbaa rubuc kala qaata الزawju ninkaa dhaxla rubuc buu leeyahay maca alwaladi haddii ilma ay dhashay haweentii aw waladi libni ama ilma ay ayeeye u tahay ilmaheedu sii dhaleen hadday jiraan oo wiilkeedu sii dhalay caruur wiilkeedu dhalay hadday joogaan ama iyadu ay dhashay duqii niskii odaygii waa laga soo riixay oo waxaa la keenay rubuc 4 meelood meel boqolkiiba 50 buu lahaaye hadda boqolkiiba 25 buu yimid fain kaana lahunna waladun falakum الrubucu mima tarakna min bacdi wasiyatin rubuc 4 meelood meel baad leedihiin markii wixii hore laga saaro hadday iyadu ilma ay dhashay ama wiilasheedu ilma ay dhaleen haddii ay ka tagtay intaasaad leedahay wahuwa fardu zawjati sidoo kaleeta haweentiina waxu qadaran weeye hal mid hadday tahay iyo wazawjaati hadday haween badan yihiinba maca cadami اlwaladi haddii aanu ilmo jirin ninkii dhalay aw waladi libni ama wiilashiisu waxay dhaleen aynay jirin haddii waxa dhintay ninkii yahay oy xaaskiisii noosho ay dhaxlayso haddii uusan wax caruuro oo uu dhalay iyo wiilashiisu waxay dhaleen uusan ka tegin iyadu boqolkiiba 25 ama rubculmaal bay leedahay markii saddexdii horeen sheegnay laga gooyo walahunna arubucu mima taraktum in lam yakun lakum waladun haddaydan caruur lahayn 4 meelood meel xoolaha iyadaa leh ama magtii ha noqoto ama maal kaloo milka odaygu u lahaa ha noqotee wathumunu 8 meelood meelna hadda waxaad soo martay labadii isqabay hadday xaasku dhimato ninku ama nus buu leeyahay haddayna caruur ka tegin ama rubuc buu leeyahay hadday caruur ka tagto haddiise ninku uu dhinto haddii uu ninkii dhinto haddii aanay caruur ka tegin haddii aanu caruur ka tegin rubuc bay leedahay su-aasha dhiman waxaa weeye hadduu caruur ka tagana 8 meelood meel bay leedahay wathumunu fardu الزawjati wالزawjaati halkii haweenta ahayd ama ka badan ninka uu ka tegay weeye maca alwaladi haddii uu caruur ka tegay oo la joogaan oo waladilibni aan wiilashiisu waxay dhaleen fain kaana lakum waladun falahunna الthumunu mima taraktum halkan waxaa lagu yihi azawjatu wazawjaat hal mid hadday tahayna keligeed baa qaadan hadday 2, 3, 4 yihiinna rubuca ama humunka unbay qaybsan hadday intay leeyihiin bay ku qaybsanayaan fardiga afraad ama waxaan leeyahay afraad wathuluthaani 3 meelood 2 dadka qaatana fardu 4 baa loo qoondeeyey oo loo qadaray 4 soo ururiyo 4tii niska qaadan jirtay ee dumarka ahayd markay keli yihiin hadday 2 iyo ka badan noqdaan 3 meelood 2 ay qaadanayaan 3 meelood 2 hadday 2 gabdhood oo keliya u dhalay uu ka tago hadday 2 gabdhood oo keliya awow aabbo u yahay uu ka tago hadduu 2 walaalo oo shaqiiq oo aabbihi hooyo wadaagan ka tago hadduu 2 aabbo keliya ay wadaagan ka tago hal marka ay yihiin ay keligood yihiin nus bay qaadan jireen hadday mid labaad ama saddexaad ama afraad ku soo darmatana uluayn bay qaadanayaanoo waxaa la siin 3 meelood marka loo dhigo baa 2 iyaga la siin walidaalika subxana wa taala subxana wa taala caruurta la dhalay markuu ka sheekeynaya caruurta la idiin dardaarmay wuxuu yihi fain kunna nisaaan fowqa 2 caruurtiinu waxaad dhashay ama sulbi ha ahaadaan ama banaatulibn fain kunna nisaaan hadday haween yihiin waxaad maydku ka tegey fowqa 2 2 ka badan falahunna waxay leeyihiin uluaa maa tarak wuxuu ka tegey 3 meelood 2 la siinayaa halkan qur-aanka iyo ma aragtaan dhaqan soomaaligii gabdhaha la dhexli jiray gablankuu noqon jiray ninku ee xoolaha adeer iyo walaalun iska dariirsan jireen gabdhihiina meel cidlaa lagaga dhaqaaqi jiray gabdhihii hadday 2 ka badan yihiin haddaba qur-aanka hadaad u fiirsato
mar waxaa la yidhi mid keliya hadday tahay nus bay leedahay hadday laba ka badan yihiinna uluayn bay leeyihiin labadiina culimmada jamaahiirtooda waxay yidhaahdeen labaduna inta ka badan bay la mid tahay waayo midii hadday nus qaadatay labadii nuskii bay qaadan daahirka qur-aanku maya ma ka badan bay qaadan saasaa ka muuqata saddex hadday gaaraanna uluayn wax nus iyo uluayn u dhexeeyo sharcigu qadarayna ma laha walidaalika fowqa snatayni laba ka badan labaduna waa lamid ibnu cabaas iyo rag badan say ku fasirayaan albintayni laba gabdhoodoo dhalay meydku wa bintay libni laba gabdhoodoo wiilkiisu dhalay halkay nus ka qaadan jireen hadday laba noqdaan uluayn bay qaadanayaan wاlukhtayni laba walaala ah qaadata uluaanka oo min alabi wاlummi ah wاlukhtayni baa qaadata oo min alabi ah aabba keliya laba gabdhoodoo walaalo ood wadaagtaan ama laba gabdhoodood aabbiyo hooyo wadaagtaan iyaguna iyadana walaalaha markii laga hadlay waay lehin fain kaanata snatayni falahuma uluaani mima tarak laba hadday yihiin wixii uu meydku ka tegay 3 meelood labaa xoolaha la siin iska daa kuwa dhale kuwa walaalaha la ahaabaaba labo uluayn ku qaataye kuwuu dhalee ka xoog badnaa iyaga laba uluayn maxaa u diili waulusu 3 meelood meelna fardu inayni laba qolaa ku dhaxasha haddaba gabdhihii uu dhalay meydku ama wow aabba u ahaa ama walaalihiis aabba ama aabbihii hooye ahaa hadday keligeed tahayna waa nus hadday laba iyo ka badan tahayna waa uluaan xaaladda soo hartay waa inay wiilal walaalahooda la joogaanoo lidakari milu xadilunhayayn lidakari milu xadilunhayayni ay noqdaan saddexda xaalun bay yeelan karaan waulu haddaba fardu inayni labaa wax ku dhaxasha alummu hooyada idaa lam tuxjab haddaan la xijaabin la riixin baabulxujbigu waa laba qaybood xujbu xirmaanin wa xujbu nuqsaanin wax la yidhaahdo in qofkii laga riixo oo booskii hore laga kiciyo welina uu wax qaato way dhici kartaa waana taa halkan uula jeedo hooyo marnaba ma qado abaweynku ma qadaan baa lagu yidhi labada waalid iyo xujbu xirmaan maba galaba lama qadiyo xujbu xirmaan waa in la qadiyaba oo la yidhahda meesha waxba kuuma yaalee orodoo iska tag dadkan haddii la waayun baa wax heli lahay alummu hooyada idaa lam tuxjab haddaan la xijaabin waxaa looga jeedaa haddaan suduska soo socda la gaarsiinin oo maxaa xijaabi kara meydku ilmo uu dhalay hadduu joogo sulus ma qaadan karto ilmo uu awow aabbow yahay hadday joogaan ama mid ama laba ama ka badan wiil ama gabar waxay dooni ha noqdaane iyadana ma qaadan karta sulus hadday walaalo laba gaadhay joogaanna ma qaadan karta sulus saa darteed bay soomaalidu markay axkaamta akhrisanayaan halkan erey yarood afarey mooda bay leeyihiin hooyadu goortay suluska qaadato waxay dhaheen habar waladkii weyday walaalo tacadudo weyday ulus la weylacata ulus bay la dhaqaaqday walad meydku dhalay ma jiro waladuu sii dhalayna ma jiro wiilashiis waxay sii dhaleen walaalo tiro lahoo laba gaadhayna ma jiraan ulus bay markaa garabka saaratay la dhaqaaqday taana qur-aanka daahirkiisaa sheegayoo ilahi subana wataala ilmaha markuu ka hadlaayey fain lam yakun lahu waladun wawariahu abawaahu faliummihi ulusu hooyadii hadduusan wax caruuraba ka tegin sulbi iyo caruurtiisu waxay sii dhaleenba labadii waalidna dhexlayaan hooyadu sudus bay leedahay aabbahana inta soo hadhay buu leeyahay sooma iyo ulus bay leedahay aabbahana inta soo hadhay buu leeyahay isaga markaa casabuu noqonayaayo famaa baqiya buu noqon wahuwa ulusku sidoo kale lilithnayni labo iyo fasaacidan wixii ka badan oo min alikhwati walaalo wiilal ah iyo walakhawaati walaalo gabdho ah buu u sugnaaday
walaalahaasoo min waladil ummi hooyo keliya mid aad wadaagteena walaalo hooyo keliya aada wadaagteen inuu hal yahay iyo inuu ka badan yahay wey iyagu waa qoomka keliya ee raggooda iyo dumarkoodu dhaxalka siman yihiin walaalo hooyo iyagu markay qaybsanayaanna madax siman bay u qaybsadaan rag iyo dumar dakari mitul xadil unsayayni maaha waxa ay qaadanayaanna wiil iyo gabar ma kala duwana walaal hooye ma yahay wey hadday hal gabar atay hal wiil hadduu yahay hadday ay wiil iyo gabar yihiin hadday laba wiil yihiin hadday laba gabdhood yihiin waa isku xuquuq dhaxalka walaalkay hooyada wadaageen markuu dhinto marka huwa liithnayni labaa iska leh fasaacidan wixii ka badan min alikhwati wiilal walaalo ah iyo walakhawaati gabdho walaalo ah oo min waladil ummi hooyada kuway dhashay meydka hooyadii baa dhashay walaalo leeyihiin aayada suuratu nisaa ku jirtay fa in kaanuu akara min daalika hal mid hadday ka bataan maxay leeyihiin fahum shurakaa waxay shirkad ku yihiin fi ulu 3 meelood meel walaalihii kale waxaa la yihi ulusaa maa tarag bay gabdhuhu leeyihiin wiilkuna waa casaboo qadar go-ama ma laha walaalaha soo haray maxay yihiin marka kuwii hooyada keliya hawey kuwa hooyadu marna way ka xoog badan yihiin kuwa aabbaha marna way ka yar tabardaran yihiin qadarkay qaadan marka la yidhaahdo way ka yaraa tabardaran yihiin inaan meesha iyaga laba qadin karin hadday timaadana masaladii mushtaraka weeyo hab abaanaa ximaaran aw xajaran ulqiya fi lyami alaysat umunaa waaxidatan qisadii cumar lagu yiri labada jeerba laba kala duwan uu xukumay wey wasudusu 6 meelood meel fardu 7 toddoba wax u qadaran wey toddoba qof baa wax ku dhaxasha suduska al-ummu kow hooyada markii la soo riixay thuluth laga soo riixo sudus bay fadhiisataa 6 meelood meel bay xoolaha leedahay macal waladi caruur hadday la joogaan meydkii ka dhintay aw waladi libni wiilashiisu waxay dhaleen baa jooga oo iyadu ayeeye aabba u tahay aw 2 fasaacidan ama labiya ka badan oo min alikhwati walaalo wiilal ah oo meydku lahaa walakhawaati walaalo gabdho oo meydku lahaa wey meydka walaalihii ama wiil iyo gabar ha noqdaan ama laba gabdhood ha noqdaan ama laba wiil ha noqdaan mar hadday lababa gaaraan walaalo ah ama shaqiiq ha noqdaan ama liab ha noqdaan ama lium ha noqdaan ama ha isku dhex jiraan marba walaal laba gaara hadday noqdaan hooyada waa la riixi halkan waxaa la yidhaahdaa dad waxaa jira hooyada waa lagu riixaa iyagana waxba lama siiyo haddii aabbihii jooga wey aabbihii iyo hooyadii hadday isugu yimaadaan meesha oy laba walaalihii a joogaan waxay dooniba ha noqdaane horta walaalihii buu duqu soo istaajin markay sudus qaadato buu iyagiina dhihi baxa waliya socda inta soo hartay buu qaadan marka haddayna iyagu joogin ulus bay qaadan lahayd marka iyada waxay dhaheen dhaxalkeeda markii la eego darar maxdaa wey waxaa jira baabulfaraaid haddaba dad lagu shaqo tagoo dad la isaga riixo iyagana la tuuro joogitaankooda qofbuu riixa iyagana qofka kale dan u tahay oo joogitaankiisa iyagu waxba qaataan waa tan oo kaleeto walaalaha meydku inta meydka aabbihii joogo wiilii gabartoona dhaxal waxba kuma laha hadduu wuxuu ixsaan uga garto waa gaar haddii maanta walaalkaa dhinta aabbahana joogo xoolo kasta uu ka dhinta anta maaluka liabiika wey hooyada iyo ilmo iyo caruur hadduu ka tagayo xaaskiisiiya maahane adiga meesha waxba kuma yaala laakiin laba haddaad gaartaan hooyadiina haddaydaan jirin caruur kalena jirin sudus qaadan lahayd baa sudus geynaysaan sudus markaad geysaanna idinkana eber baa laydin diri markaasaad ka baxaysaan wahuwa liljadati tanna waa tii qur-aanku tilmaamayo markii la yidhi waliabaweyhi likulli waaxidin minhuma sudusu labadii dhasha mid walba sudus buu leeyahay aabbihi hooyo in kaana lahu waladun hadduu caruur leeyahay fain lam yakun lahu waladun caruur hadduusan lahayna faliummihi uluثu bay qaadan fain kaana lahu ikhwatun walaala hadduu leeyahayna faliummihi sudus baa lagu soo celiyey aabbuhu isagu casabuu iska taagan yahayo famaa baqiya buu taagan yahay qolyahan walaalahana duqdu buu ku riixaye hooyadu buu ku yarariixay xoogaye
waxba uma ogola ixsaan waa baabkiiyo fadligu wahuwa liljadati ayaydaa iska leh cinda cadami اlummi hooyada marka la waayo hooyada marka la waayo ayayadaa la siiyaa suduskiisyadaa qaadata masalada ayayadu sudus inay qaadanayso xadiid qisas majmuucu turuqihaa xasan gaarayay leedahay oo nabigu ayeeye inuu siiye mar mugiirata bni shucba laga warinayo marna burayda laga warinayo marna majmuuca maraasiil oo xadiid maraasiil oo sanadkoodu sugan yahay la warinayo marka la isu geeyo waxaa la dhihi karaa darajatulxasan bay isla gaarayaanoo ayayadu sudus inay leedahay nabigay ka sugan tahay baa la dhihi karaa sala allahu alayh ali wasalam walibinti libni wiilkii gabadhu dhalay baa leh maca binti sulbi gabar awowuu dhalay markay la joogto meydkii dhintay hal gabar buu ka tegey oo u dhalay iyo gabar uu awow aabba u yahay tan hoose hadday keligeed tahay nus bay qaadan lahayd tan kore hadday laba yihiinna uluaan bay qaadan lahaayeen tan kore nuskeeda u daa ulutaynkii maxaa ka dhiman sudus baa ka dhiman waayo xoolihii 6 markaad u qaybiso nuskii 3 tii bintu sulbiga ahayd baa qaadatay 3dii tii suduska qaadatayna hal qori bay qaadatay 3dii iyo halkii qori markii la isku dara waa imise 4tani maxay uga dhigantaa 6dii 3 meelood laba sooma takmilata ulutayni saasaa loo yiri wixii uluteynka ka dhimanaa ee gabarh walaasheedoo kale hadday joogta ay soo biirin lahayd bay tan awowga u yahay aabbana soo biirin laakiin iyadaa qaadan tanna intanay qaadan way kala batanayaan labada way wada dhexlayaan dadkii dhaxal la lahaa si laba gabdhoodoo meydku dhalay bay u noqonayaanoo horta iyagu xoolahaasay gaar la mari markay isku soo haraanna tanna in bay leedahay nasan tanna inta u soo hartay bay qaadan oo suduska takmilatu uluteynka ah waana qisadii xadiidkii saxiixaaye ibnu mascuud radi allahu canhu wa ardaahu niman baa meyd baa dhintay gabaruu dhalay iyo mid walaashii ah iyo miduu u aabbuu yahay uu ka tegey abuu muusa ashcari baa loo yimid dhexashii masaladan agow masalada haddii aada iska ijtihaadda waad qaldami kartaa wuxuu yihi tuu dhalay nis bay leedahay walaashiina nis bay leedahay tuu awowga u yahayna waxa meeshuuma yaallo orday ibnu mascuud u taga wuri ugu waafaqi doonaay ibnu mascuud baa loo yimid waxaa la yidhi saasaa dhacday abuu muusa saasuu xukumay waana na soo diray uuna igu waafaqi doonaa buu yidhi haddaan waafaqa wuri inii idan qad dalaltu idan waa lumay bui aniga diintiiba waan ka dhumay bui warkaa haddaan qaato tuu dhalay nus bay leedahay ta dambana ee awowga aabbo u yahayna nus buu leeyahay inta soo hartayna gabadha walaashiha iskale buui nabigaan arkay buui goobjoog kaha isagoo sidaa u dhexeshiiyey sala allahu alah ali wasalam marka nabigaaban ogaasu u dhexeshiiyey haddaan war ka duwan abuu muuse qaato nin meel xun ka dhacay baan ahay buui adiga laakiin waxaan iska dhihi nabigaasaa yidhi imaam shaafici baa saa qabe hadalka ibnu mascuud wuxuu cashir kugu yahay aan ku weydiinay imaamu shaafici iyo abuu muusa alashcari kee fadli badnaa keebaase cilmi badnaa ibnu mascuud wuxuu ku leeyahay nabiga warkiisoon hayo haddaan warka abuu muuse qaato nin dhumay baana qof kastaba haddaad warkiisa qaadata warkan nabigood hayso ala sla slam abuu muuse iska daa warkiisa abubakar warkiisa haddaad qaadato oo warkii nabigood hayso ka duwan qad dalaltu baad geli waad baadiyowday markii nabigu yimaado saa darteed waxay yidhaahdeen idaa jaaa nahrullaahi bataala nahru macaqilin waan qalday marka tan waa nus tanna waa sudus takmilat uluayn gabadhuna inta soo hartay oo ulukuu soo haray bay iska qaadanaysaa marka halkan waxaa la yidhahdaa markii xaqu yimaado idaa jaaa nahrullaahi baala nahru macqil webi xagga alle laga soo daayay hadduu yimaado waxay asalkeedu ahayd bay yidhaahdaan beeraa la waraabinayey ninbaa biyo yar iisii daa lalahaa intuu roob da-ay bay biyo fatahada yimaadeen oo xagga minallaahi laga soo daayoo socda war ninkii macqilaa biyahan uga baahnayn markii biyihii rabbi yimaadeen kuwa ka kaxoo loogama baahna wey soomaaliduna waxay yidhahdaan haddii sheekh yimaado macallin fadhiisay sooma
marba warka nabiga hadduu yidhaahdo wixii ka soo haray ee ka hor imanaya o dhan waswaasu shayaaiini wey saasayna amadu dardaarmi jireen marka warkaa waxbaa kaala jira afar waxaa iskale wahuwa lilukhti meydka walaashibaa iskale min alabi aabba keliya ay wadaagaan markay macal ukhti walaal la joogto min alabi waalummi labada walaalahee midna aabbiyo hooye ah midna aabba ah waxay u dhigmaan sidii tii uu dhalay iyo tuu awowga u ahay oo kale tan horene labada dhinac ay wadaagaan aabbiyo hooyana nus bay qaadan tan kalena waxay qaadan sudus takmilatu ulusayn ay qaadan marka siday labadaa isu kabeen bay labadanna isu kabayaan waxayna yidhahdeen culimmadu masalada waa min baabi alqiyaasi qiyaaskaana waxaa weeye labada gabdhoodii siday isu kabaan bay kuwana isu kabaan maadaama axkaamtii niska iyo ulusaynkaba ay wadaageen tan takmilatu ulusaynkaana qiyaasan waa inay wadaagaan an wahuwa sudusku fardulabi aabbaha iska leh maca alwaladi ilmo markuu jooga meyd ku dhalay aw waladi libni ama wiilashiisu waxay dhaleen baa jooga meyd baa dhintay ilmihiisii baa jooga ama wiilashiisu ilmahay dhaleen wiilal iyo gabdho iyo tira iyo mid iyo laba waxay dooni ha noqdaane waliabawayhi likulli waaxidin minhuma sudusu in kaana lahu waladun hadduu caruur leeyahay labadii dhashay mid walba sudus buu leeyahay sa caruur lahayn buu aabbuu batan oo waxoogay ku darsan lix wahuwa fardu ljaddi awowga farad ugu qadaran weeye cinda cadami alabi aabbaha marka la waayo waayo awowga laftiisa aabbaa lagu magacaabaa aabba waa la yihahdaa sooma nebi yuusuf watabactu millata aabaa'i kor buu ka soo bilaabay sooma ibraahim isxaaq yacquub soo yuusuf ibnu yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim maaha taniyo awowgii labaad baa aabba lagu magacaabay masaladan waxay culimmadu ku ijmaacsan yihiin aabba haddii la waayo booskii waxaa soo riixan oo soo celiyeen awow sida hooye haddii la waayaba ayeeyadu ay u soo celiyeen wahuwa sudusku fardulwaaxidi hal mid wuxuu dhexqadaran weeye oo min waladi lummi ilmahay hooyadaa dhashay ah meydka hooyadiibaa dhashay waa walaal hooyo meydkii waa dhintay walaalkii hooyuu ka tegey ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqday oo hal mid ah sudus buu leeyahay wain kaana rajulu yuurahu kalaalatan aw imra'atu walahu akhun aw ukhtun falikulli waaxidin minhuma sudusu meyd la dhaxlaya hadduu kalaalatun yahay kalaaladu wax dhalay oo waalid ahoo dhaxlaya iyo aabbi iyo maleh wuxuu dhalay oo dhaxlayana maleh tafsiirkaasay u dhowdahay walaal laakiin wuxuu leeyahay walaal wiila ama gabara mid kastaba hadduu mid keligii yahay ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdee sudus buu qaadanayaa gabadhii walaasha ahayd horey waxaa laguu soo yiri falaha nisfu nus bay leedahay taasi waa tii aabba ay wadaageen ama hooyaha ugu darmata ama yaana ugu darman tanina waa tii hooyo keliya ay wadaagaan waxay dhahaan biijmaaci lmufasiriina mufasiriintu aayaddan inay ikhwa liumkuha ka hadlayso bay isku raaceen toddobadaas baa iyagana lix meelood meel xoolaha dhaxla qolo walbo shuruud bay leeyihiinoo waa inaan dad xijaabo oo iyaga ka xigaayey oo meesha ka saaraba iyaga aanay jirin tiibuu haddaba galay xijbigii xijbiga weliba uu galay halkan waa xijbu xirmaaninkii wey marka halkan qaarkood fasal bay ka dhigaanoo filxijbi bay yidhaahdaan xijbigu waa qof hebel hadduu joogo adugu waxba kuma lihid waxaad ka mid tahay uun waidaa xadara alqismata ulilqurbaa waxaa laga siiya qaraabada hadday timaada meel xoola lagu qaybinayo waxa loo taago taasaa waxay keentaa meel lacag lagu qaybsanayo qof hadduu soo istaago in la qadiya ma fiicna baasha markii la arka naftu way iska raacdaay wuxuu dooniba ha noqdee meel wax lagu qaybsanayo qof yimid yaan la qadini wuxuu dooniba ha noqdee waxuun ha looga taago waxana maalmo way iska dhammaan wax macno lama aha wixii falkee samaan baa ka hadhi watasqutu ljadaatu ayeeyooyinku way dhacaan bilummi hooye hadday joogto hadday hooyo joogto
ayeeyatii la dhihi jiray meeshan waxba uma yaallo ama xagga hooyada ha ka timaado ama xagga aabba ha ka timaado xagga usuushaada haddii loo kaco hooyo intay joogto wax dumarahoo kale oo ka koreeyo iman kara ma leh intay hooyo joogto kor usuushaadii ayeeyooyin bay noqon karaan dariiqay dooni ha ku yimaadaan ama xagga hooyada ha ka yimaadaan oo hooyadeed ha noqoto ama xagga aabbaha ha ka yimaadaan oo aabbaha hooyadii ha noqoto hooyo intay fadhido watasqutu ljadaatu ayeeyooyinku way dhacayaanoo way qadayaan maca bilummi hooyo joogitaankeeda walajdaadu awowyaashiina bilabi aabbaha awow dhaxla xagga aabbaha buuba ka yimaadaaye aabba intuu jooga awow meesha waxba uma yaallo markii aabba la waayuu meesha soo ciriiryadaaye kii kaa sokeeye oo casabo oo wixii allaalay wuxuu arkaan hambeynaynin baaba joogee wax ku soo gaara lama hayo wey wayasqutu wuu dhacaa waladu lummi walaalkii hooyo maca arbacatin 4 qof mid ka mida hadday joogaan isaga meesha uu isaga bixi kow alwaladu meydkii ilmuhu dhalay hadduu joogo wiil iyo gabadh wuxuu doonay ha noqdeen mar haddii meydku ilmo ka tegey walaal hooye waxba uma yaallo wixii qaraabtinimo loo gartana waa gaarkeeda wa waladilibni meydka wiilaluu dhalay wiilashiisa caruuray sii dhaleen hadduu yaallana meydka walaalihii hooye meesha waxba uma yaallo iyagana walabi aabbaha meydka aabbihii iyo waljaddi awowgii afartaa labadaa usuusha iyo labadaa furuucda hadday joogaan baa waxaa lagu soo ururiyaa haddii asal ama farac waarif a joogo wax dhaxlaya waxba isaga uma yaallo qaar baa waxay ku daraan asal iyo farac waa dakar oo waarif ah haddii saa la yidhaahdo alwaladu wa waladu libni wiilal keliya noqon marka waxaad leedahay farac waarifana waa inuusan jirin asal dakarahoo waarifana waa inuusan jirin oo wax dhaxlaya markaasuu walaal hooyo meesha waxoogay lug la soo geli karaa afarta haddii la waayo isaga waa taagan yahay cidina ma saari karto iyadoo laga yaabo in la saaro walaalo kale buu isagu taagnaan oo la riixi karin wayasqutu اlakhu walaal waa dhacaa meesha waa ka baxaa lilabi wاlummi walaalkay meydka aabbiyo hooyaba wadaageen 3 4 ka mida isaga saarta